Assalaamu calaykum asxaabtaygu xiran soo dhawaada insha allah waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan insha allah tacaala qofkay u tahay habeen wanaagsan soo dhawaada asxaabay insha allah tacaala waxaan idin leeyahay ayaantaan waa idin cileeyay soo maahan fiidiyoyaasheedii waxaan ku dhahay waan inkala habsaamay laakiin asxaabay waxaan rajeynaya inaad ii garaabi doontaan maadaama aan xoogaa mashquulsanahay asxaab badana waxay igu dhaheen intee ka baxday maxaa usoo hadli la-dahay maxaa kugu dhacay wiig ku dhawaad wiig ka badan ayaan ka maqnay janalkayga marka insha allah tacaala asxaabay wax dhiba ma jirin xoogaa mashquul ayaan noqday maahane wax problem ma jirin waxaa liigu dhahay aaway cuntada noo soo gelin jirtay soo karin jirtay walaalay macaanay sidee wax ku wadaa ciidii ilaa hadda hal video unbaa nooga soo tuurtee see camal maxaa waaye saan aa lay dhahay marka hadda anagoo iniga ilmaha yaryarka oo kar joogno ayaa waxaan sameeyey inaan muuqaal yaroo gaaban ka duubay kadibna maxaa la yiraahdaa aan dhahay bal asxaabtaadii inaad caadi tahay bal ka dabageey oo waxaan ku dhahayaa luuqa kuugu soo diraayeen saaxiibaysee wax kaa yihiin fideogeyga barxad ayuu qayb ka ahay maanta qaybtan kale waxaa waaye video yaroo gaaban oo rabay inaa iida idiin soo geliyay ayay ahayd oo xoolaha islii la keeno iida magaaladeena magaalo cajiib ah waaye oon la heli karin oo yaab la waaye because of markii iida la gaaro ari ayaa lasoo safaahan ku dhahay banaanka special ciid weyneyda maasha allah asxaabey videogana waa kii ciida adiin soo geliyey haaf ka mid ah waaye maxaa la yiraahdaa meeshan waxaa waa Uhuru Park insha allah waad hore waa u daawateen maasha allah kaana qofkii aan daawana waxaan leeyahay hore channel kadib ugu noqo asoo xoogay dheer ayaan soo geliyey laakiin maantay in yaroo gaaban ayaan ka soo qaatay asxaabteyda maasha allah tabaaraka asxaabay inta isoo raadisay waad ku mahadsantihiin aan leeyahay intee ka baxday soo yiri inta kaleetana waxaan leeyahay asxaabteyda waxba problema ma jirin waxaa iska ahayn maahna qof oo keligeed ah channelka marka channelka haddii dad kale kula wadaan qofka kale wuxuu usoo dhigi karaa laakiin haddaa kaligaa tahay waxaa waaye adila ku sugaa maaho marka dhib kale ma jira maasha allah waxaan idin rajeynayaa inaad habi tihiin oo jawi nabadeed farxadeed sida anaka oo kale aad ku jirtaan insha allah asxaabta igu xiraan oo channelkayga mar walba laagta ii saaro oo subscribe-ka ii ah iyo kuwa i daawado oo views-ka iga faa'iideeya insha allah waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aragtay muuqaal aan leeyahay inaad subscribe ii dhahdo oo laagna ii saarto waad ku mahadsan tahay waxaa waaye haddii aad qof walaalka wuxuu kaa codsaday waxba kaa dhibeynin u sameysid waxaad ka helaysaa ajir haddii qofka uusan wax xun soo dayneynin ama maxaa la yiraahdaa wax bulshada kala dheereynaya ama maxaa la yiraahdaye aysan ku jirin dhaqankeena in wax laga sheegayo ama lagu dheelayo dhaqanka nooc kastoo noqon karaa dhaqanka Soomaalida dhaqankeena waa iska niraa maahane laakiin dhaqankeena dhaqanka islaamka waaye oo maxaa la yiraahdaa in qofkii uu afkiisa laga amaan helo in maxaa la yiraahdaa qofka uusan dadkii bulshadii oo usoo gudbinaynin wax dhibaya marka wax dhibaa wax kastay noqon karaan qofa qabyaalad ka hadlaya maanta dhan reer uu ku dhagan yahay wuxuu sameynayaa qofna waxaa waaye wax been ah oo bulshada waxba ka faa'iideynin ayuu maxaa la yiraahdaa iska soo daayaa inkastoo hadda dadkiiba waxaas lay jecel yihiin waxa dadka bilaa faa'iidada unbay saaid u xiiseeyaan dadka Soomaalida waan arkay laakiin waxaa waaye dad kaloo fiican oo caadi ah nadiifana way iskaga jiraan oo buuq iyo qaylada nacab maasha allah kaana insha allah tacaala cimriga saas usii dheer maahan haddii aad isleedahay waqti badanaa kuu haray waxaa waqtigaada ma ahan inuu adiga meel kuugu xiran yahay adoo yar ayaa dhiman kartaa adoo oo weyn ayaa dhiman kartaa marka waxaa isdhihin weligaa waxaa rabta sameey waxaa rabta ku mashquul maxaa la yiraahdaye garanti ma haysatid marka insha allah tacaala waxaan idin rajeynayaa caafimaad waxaan idin rajeynayaa nabad insha allah ilaahay inta dhibka musiibooyinka iyo dabaylaha iyo duufaanada iyo dababka ka socda wadamada qaar ilaahay ha ka dulqaado gaar ahaan wadankaas Turkiga oo gaar ahaan wadankiisa aad u gubanayo
ilaahay waxaan ku baryaynaa in amni iyo qabow iyo roob degdeg ilaahay siiyo. asxaabay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.